waxaan baarlamaanka Puntland horgeynay miisaaniyaddii 2020 miisaaniyaddaas waxay ka koobnay 346,416,158 dadka yaqaana sida loo sameeyo miisaaniyadaha way garanayaan miisaaniyaddan waxa ay tahay laakiin dadka Facebook iyo aqoon yaridu hayso waa la yaabayaan oo daraska miisaaniyadda waxa weeye waxa dalka soo gali lahaa dakhli waxa loo darasay dalka waxa dakhli soo gali lahaa ama gudaha noqoto ama dibadda noqoto miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay wax alla wixiina soo gali lahaa Puntland oo miisaaniyadda dawladda lagu daray ama laga helo tan miisaaniyadda gudaha laga malaynayo waxa weeye 93 milyan 466,666 miisaaniyadda dawladaha hoose waa 6,984,516 deeqaha ka imaanaya dawladda federaalka waa 2,500,000 mashaariicda bangiga adduunku waa 20,673,793 deeqaha laga fariyo dawladaha dibadda waa 2 milyan mashaariicda qaramada midoobay 112,836,350 hay'adaha caalamiga 107,954,834 macnaheedu waxa weeye dakhliga loo malaynayo Puntland 2020 dhammaan gudaha iyo dibadda inta aan ka helayno miisaaniyadaha adduunkuna waxay ku salaysan yihiin ama dawladdu waxay ku salaysan yihiin waxa dalkaas helayo ama gudaha ka helo ama bannaanka ka helo baarlamaanka waxaan ka rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo way nala garanayaan muddo badan rag odayaal soo joogay baa jiray sida miisaaniyadaha loo sameeyo nooca loo sameeyo waa garanayaan waxaan baarlamaanka ka rajaynaynaa inay ansixiyaan shacabka Puntlandna waxaan ugu baaqaynaa lacagta ku qoran inay canshuuraha bixiyaan inay canshuuraha garab nagu siiyaan oo canshuuraha kor u qaadidooda nagala shaqeeyaan oo ay noo sahlaaneen miisaaniyadda oo daraskeeda in aanu gaarno meesheedii laakiin akhrijibaar wax ku dhaweeyay hore ka badan tahay aad bay u badan tahay dadku su'aasha isweydiinayaan waxa weeye miisaaniyadaha sida loo sameeyo baan u samaynay waxaan hadda keennay xeerkii ku dhaqanka miisaaniyadda iyo miisaaniyaddii macnaheedu waxa weeye markii hore waxa la soo gudbin jiray oo kaliya waxa gudaha laga rabo laakiin hadda waxa la sameeyay oo la casriyeeyay dhammaan Puntland waxa dakhli soo galaya in miisaaniyadda dawladda lagu daro si adduunka oo kale ay tahay oo kale marka miisaaniyadda Soomaaliya way ku dhowdahay sax weeye Soomaaliya miisaaniyadeedu waa ku dhowdahay laakiin lacagahani waa lacagaha la malaynayo oo la xaqiijiyay inay Puntland soo galayaan waliba qaybo badan oo aan ku darin baa jira dawladaha hoose ayaa markii horeysay ku soo dirdeen bal halka faahfaahin dawladaha hoose waa ku soo darnay barnaamijka waxay ku soo xirneen MFS-ka ee wasaaradda bay ku soo xirmeen dhammaantoodna dakhligoodu wuxuu marayaa miisaaniyadda waana lagu soo daray iska daadin male inta noo day lacagaha laga filayay inay ka yimaadaan sida kuwa deeqaha caalamiga kuwa dawladda federaalka ma bangiga dawladda soo marayaan oo idinka maamulaya qayb waxaa jira inay bangiga dawladda soo marayaan qaybna waxay soo marayaan systemka lagu xiray oo dawladda mar walba dawladdu waxay ogaanaysaa